kani waa xildhibaanka laga soo doorto bariga Mandheera Xuseen Weytaan waxa uu maanta gudaha suuqyada kula sheekaysanaya dadweynaha magaalada wuxuuna ka dhageysanayaa dhammaan dhibaatooyinkooda waa markii ugu horeysay oo la arkay xildhibaan wada lugeynaya keligii isagoo salaamaya dadweynihii soo doortay guud ahaan taariikhda gobolka Waqooyi Bari Weytaan waxa uu dhex ordaya dadkiisa waa uu salaamaya waa uu la sheekaysanaya waa uu la qoslaya waa uu sheekaynaya waana loo sheekaynaya xildhibaanka ayaa maanta guud ahaan soo maray wadooyinka waaweyn ee magaalada wuxuuna marba gacanta u haatinaya dadkiisa si uu u tuso jaceylka ka warqabka uu qabo Weytaan ayaa sidoo kale booqday goobtii ay dhawaan ka dhacday shaqaqadii ayadoo xildhibaanka dadweynaha ku booriyay inay nabadda ku wada noolaadaan oo xaaladda la dejiyo xildhibaanka ayaa cagta soo mariyay gudaha suuqa Bacaalaha wuxuu hooyooyinka iyo dhammaan ganacsatada u sheegay in mar waliba uu diyaar u yahay inuu garab galo oo taageero u fidin doono xildhibaanka ayaa sidoo kale waqti iyo wada sheekaysi la qaatay hooyooyinka magaalada gudaha suuqa ugu mashquulka badan Mandheera ee Metameta waxa uu sheegay inuu yahay xildhibaan dadweyne oo san ahayn xildhibaanka kaliya oo ku kooban daarta waaweyn ee Nairobi iyo magaalooyin kale Xuseen Weytaan ayaa hadda dadaal ku bixinaya dhageysiga cabashada shacabkiisa wuxuuna ballan qaaday inuu ka warqabi doono xildhibaanka ayaa galabka casir leeqi ku shaacabay maqaayada loo yaqaan Uroon oo halkaasi galabkii lagu shaheeyo wuxuuna halkaasi waqti kula qaatay dadweynaha waa sidee jawiga inta uu socdaalka ku jiray Xuseen Weytaan السلام عليكم سيدين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله وهذا وادكت هذا وادكت زمن شيء يعني ماذا كانوا تنا يشو إن أدلوي ما دم السلامتو عند ميشا ما شاء الله حتى مركز ألف دولار تقول أنا كوالين إن نسوي فينش يا نسوي بوقته يا ها إن شاء الله مالك ما جام أساسا أنت تعطيش كتب وقت سيدا وقت لازمي ها Sako Bule Dawa FM County Mandheera